haddii aad rabto inaad caddayso ardayda baastay iyo kuwa dhacay waxaad tagaysaa columnka aad rabto inaad ku caddayso kadibna waxaad qoraysaa calaamadda equal kadibna waxaad raacinaysaa if markaad qorto bracket ayaad furaysaa waadna xiraysaa bracketka dhexdiisa adigoo dhex jooga ayaad waxaad dooranaysaa columnka average-ka uu kugu jiro waxaadna qoraysaa calaamadda greater than kadibna waxaad qoraysaa average-ka ardaydu ay ku dhacayaan oo inta badan ah 49.9 kadibna waxaad leedahay oo aad qoraysaa comma kadib waxaad furaysaa double quotes markaad furto waxaad qoraysaa waxa aad rabto ardayda baastay inaad ku caddayso aniga kaliya waxaan leeyahay baas kadibna waxaad xidhaysaa double quoteskii aad soo furtay kadibna waxaad leedahay comma markaad tiraado waxaad mar kale furaysaa double quotes waadna xidhaysaa dhexdiisa waxaad ku qoraysaa waxa aad rabto inaad ku caddayso ardayda dhacday aniga kaliya waxaan leeyahay fail kadibna waxaad leedahay inter markaad tiraado waxaad arkaysaa in ardayda average-kooda uu ka hooseeyo 50 uu kugu soo qoraayo fail halka kuwa average-kooda 50 iyo wixii ka badan ahna uu baas kugu soo qoraayo